asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran janaalkan soo dhowaada waa mar kale iyo muuqaal cusub haddaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa musalsalka dhaawacee qalbiga xalqadiisa 28aad faalladeeda oo dhammaystiran haddaba xalqadda ayaa ah mid ka bilaabmanaysa muuqaal yaro hordhaca ayaana la tusayaa xalqadda bilowgeeda horeba haddaba muuqaalkaasi waxa uu yahay haddii aad xasuustiin maalmo ka hor waxaan idiin sheegnay atariso cusub in lagu soo dari doono xalqadda 28aad marka atariisada ayaa lagu soo daray macluumaad ku saabsan haddii aad rabtay atariisadan waxay hore ga soo qayb gashay taxanihii Kuzey Yildiz ee laga daawan jiray telefishinka Show TV mana ahan atariisa dhammaystiran laakiin taxanaha ayaa lagu soo daray muuqaalada xiga ayaan uga hadlaynaa doorkeeda iyo waxa loo keenay laakiin hadda haddii aan wada nafaaladeenna gabadha ayaana la tusayaa waxay soo gali doontaa qol ayadoo iska ilaalinaysa hareeraheeda sida inuu qof daba joogo rooseeta ayay marsanaysaa wixii intaa ka dambeeyey taxanaha ayaa ka bilaabanaya halkii ay nagaga dhammaatay xalqadii hore sababtoo ah Fariid markii uu imaaday Yaman uuna ku dhahay adeega ayaa aabahay dilay ayay ka bilaabanaysaa markaas ka bacay haddaba Yaman ayaa Fariid ku dhahaya caddayn waa inaad keentaa inaan aabahaaga dilay Fariidna waxa uu keenayaa yacni caddayna iska yaryar sida in uu dhaho qofkii u dambeeyey ee aabbahay la kulmay adiga ayuu ahaa sidoo kale aabbahay inta uusan dhiman ka hor mobile ayaa ku hadlayseen wayna kaa suurtoo inaad dishid haddaba ninkii lagu magacaabayay Sinaan ayaa isku dayaya in uu ninkan Yaman lagu magacaabo Fero waa uuna feeraya laakiin waa laga qaqabanayaa Yaman ma hadlaayo Sinaanna waxa uu dhahayaa adiga ayaa aabahayga dilay soo maaha asagoona aaminay xilligaas in Yaman uu dilay aabihiisa haddaba Yaman waa mid walwalsan qoftii handii ahaydna waxay ku lahayd yacni ma adiga ayaa dilay intii guriga la soo gashay Yamanna ilaa hadda xabsiga lama geen haddaba Caysha ayaa lala soo hadli doonaa marka lala soo hadla ka bacdi waxaa loo sheegayaa in yacni la waayay Elif haddaba waxaan u imaaday oo meesha joogay Mirsaa ninkii lagu magacaabay ayaa joogay meesha joogay gurigana ugu imaaday isagoo leh Elif ayaa la la'yahay Fariidna waxa uu maqlay cod ay u soo duubtay Elif Caaisha codkaasoo ku jirtay adiga kalidaada ma adeesin oo ku saxsan tahay Fariidna waxa uu ogaaday in Caaisha laga saari rabay kalideeda arrinkaasi ayuuna ka xanaaqay oo waa mid ka xanaaqsan asagoona ku lahaa yacni kalidaas u saareysay hadda qoftan lagu magacaabo Cayshe waa mid u dedegsanaysa in ay u tagto walaasheeda Elif gaari ayay soo raaci doonaan ayada iyo Fariid sidoo kale Mirsaana waa hor socdaa laakiin Fariid ayaa xanaananaya Cayshe waxa uu dhahayaa dadkan waxaas la joogtay sidoo kale maad aqbashina kalidaad u saartid waa aqbasha ayuu ku dhahayaa markaas ka bacdi Mirsaa ayaa soo dul istaagay waxa uu dhahayaa dhibaato miyaa jirta Fariid waxa uu dhahayaa dhibaato way jirtaa aniga ayaa ku sheegayo inta uu soo baxo ayuu feerayaa Cayshe ayaa kala celin doonta oo labadooda kala dhex istaagi doonta markaas ka bacdi ninkan Mirsaa lagu magacaabo waa mid soo horkacaya soona kaxaynaya dhanka kale Butul waxay la kulmaysaa Fidia oo ka timaaday magaalo Milas lagu magacaabo halkan ah oo dhanka yacni reer Turkiya ah dhanka kale waxaa arkaynaa gabadhii handii lagu magacaabayay oo dabcan shopping soo doonatay halkaasna waxa ay kula kulmi doontaa atariisadii cusbayd aan idiin sheegnay inta xanaha lagu soo daray ayay halkaasi handii gabadhan lagu magacaabo kula kulmi doontaa gabadhaasina xilligaas waxay la wadaagtay dharka ay ku quruxda badan tahay oo kaliya laakiin ayada labadooda wax aqoon ah ma uusan dhaxmarin haddaba ninkii Shaahiin ahaama Caysha awoogeeda waa mid walwalsan asagoo gurigiisa ka fadhiya Fariid ayaa u iman doona Fariid marka uu yimaado ka bacdi Fariid ayaa xilligaasi halkaas canaan nafta kaga qaadaya asagoo ka hadlaya arrimaha Caysha ku saabsan waxa uuna leeyahay yacni gabadhan ma xartay in aad ka saaratid kalida dhanka kale waxaana la tusayaa qoftii Butul ahayd waxay la hadlaysaa Fidia markay airportka joogeen ka bacdi waxay soo kaxaynaysaa oo waxay keenaysaa meel ayadoo ku leh walaal Fidia ama walaasha Fidia aniga waan ogahay Yaman adiga u tahay habaryar Yaman waxa uu sameeyay runtii wax qaldan waaye adigana waad maqnayd maalmahani Yaman haddaba waxa uu sameeyay gooreyntii waxay isguursadeen hande oo uur u leh sidoo kale Yaman waxa uu sameeyay waxa uu la wareegay gurigii reesan jaagsaade oo waxaasoo dhan ayuu sameeyay Fidiana runtii waa mid walwalsan waxayna ka walwalsan tahay wiilka ay habaryarta u tahay waxa uu sameeyay markaas ka bacdi isla markale waxaana la tusayaa gabadhii cusbeed taxanaan lagu soo daray oo dabcan
ayadoona xilligaasi yacni iska soo socota sawirada ku mashquulsan sawirada Fariid iyo Yamaan iyo sidoo kale Handee ku mashquulsan. Haddaba qof qaba gacmihii ama gloveska qaba ayaa qabriga Cadnaan Sanjaagsaada imaanaya, kadibna waa uu sasalaaxaya oo waxa uu isku dayayaa in uu salsalaaxo ayuu isku dayayaa. Dhanka kale habeennimadii dhammaan reer Sanjaagsaade waxay imanayaan miiska cuntada oo miiska cashada ayay joogaan, laakiin Yamaan waa mid aanan joogin oo qolkiisa ku jiro oo welwelsan. Handee ayaa u imanaysa waxayna ku dhahaysaa Yamaan waan ku baryayaa in mar kale cashayne. Asaguna waxa uu dhahayaa Handee aniga yacni gaaja ima hayso, laakiin Handee waa mid ku dhahaysa dabcan waxay dhahaysaa Handee Yamaan oo kursigan waxaan u tagaynaa in aan buuxino inaan wax cunno uma tagayno, yacni kursigaas aan ugu fadhiisano ina mari meeshan ha joogin. Haddaba asagoo marka uu soo kaca kabacdi uu yimaado miiska cuntada waxaa meesha iman doona booliiska, laakiin inta aysan booliisku qaadin ka hor waxaa bannaanka kula kulmi doontaa habaryartiisana waa mid dharbaaxaysoo leh hadda makaa dhaba waxaan oo dhan ma adiga ayaa sameeyey. Haddaba isla mar kale waxaan tusayaa gabadhii taxanaha lagu soo biiriyey ama atriisadii cusbee taxanaha lagu soo biiriyey ee dabcan oo daawanaysa sawirada Handee, Yamaan, Fariid. Dhanka Instagram-ka ayaa dabcan ka daawanaysa oo ka daawanaysa dhammaantooda. Wax ali waxa damacsan tahay ilaa ay hadda lama sheegin. Dhanka kale ninkii Yamaanaha waxaa la keeni doonaa xaggaas iyo booliiska, kadib markii la keeno su'aalo badan ayaa la weydiin doonaa, laakiin jaakeed dabcan laga helay gaariga Cadnaan ayaa qoftan Azaadiye ay geysay oo Azaadiye ayaa arrinkaas oo dhan ka dambeysay. Yamaan waa mid arrinkaasi wax laga weydiin doono runtii yacni arrinkaas wax laga weydiin doono ka naxsan, laakiin uma eka Yamaan qof dembigan galay oo kalsooni isku qabaa. Fariidna waa mid welwelsan asagoo xaaskiisa Caysha la jooga. Waxa uu ku dhahayaa bal ka waran haddii yacni Yamaan uu dilay aabbahayga. Cayshana xilligaas waa ay dhiirigelinaysaa, waxay dhahaysaa keliya wanaag uma rajaynaynaa in ay noqoto. Haddaba islaantii Fiidii ahayd waxay imanaysaa gurigeedii oo guriga imanaysaa, laakiin tan ugu yaabka badan ayaa waxay tahay Fiidiya mar walba mobaylkeeda waa la soo wacayaa waana lala soo hadlayaa, laakiin qof la soo hadlaya naloma sheegayo. Ayaduna marka mobaylka ay qabato waxay dhahaysaa yaa tahay ma hadli kartaa, yacni caadi u hadal, maxaa kugu dhacay hadal. Mar ay u sheekeynaysayna waxay dabcan mar ay u sheekeynaysay Bituul waxa ay sheegtay in aysan hubin walaasheed dhimashadeeda. Sidaa daraaddeed asxaabteena qiimaha badan inkastoo muuqaalka xigan kaga hadli doono Yamaan hooyadiisa ma aysan dhimanin ayaa loo badinayaa, waana akhbaaradii u dambeeyay ay ka mid tahay. Si kastaba ha ahaatee muuqaalada xigeen arrinkaasi uga hadli doonaa ee saa ula socda. Haddaba islaanta mar walba runtii waa la soo wacayaa. Dhanka kale Xuseen waxa u iman doonta xaaskiisa Zumruud ha u timaado ma xumee. Labadooda waxaa dhex mari doona sheeko aad u dheer, laakiin inta ugu muhiimsan haddii aan ka soo qaadano waxa ay tahay Zumruud marka uu timaado Xuseen waxay ku dhahaysaa gabadhaada hadda wada fiican kuma socoto. Xuseenna waxa uu dhahayaa gabadheena wada fiican ay ku socotaa, ur ayay leedahay, waxa guursaday sidoo kale Yamaan ay isjeclaayeen ayaa guursaday sidoo kale yacni meeshaas iska joogaan. Haddaba Zumruud waxay u sheegaysaa ama ay ku dhahaysaa Xuseen yacni Handee si kastuu Yamaan u qabo yacni waxay la wareegeen hantidii qasriga. Handeena Yamaan waxa ay u qabtaa si ay hantidaasi ugu babaashaasho qasrigaasna ay u joogto, reer Sanjaagsaadena ay u goomaysato ama ay uga argusato si kale uma qabto. Xuseenna midaas waxay ku noqon doontaa layaab oo war ma uusan ka haynin markii horeba, wax war ah ma uusan ka haynin ninkan Xuseen lagu magacaabo in ay la wadaageen. Haddaba Handee waxay la hadlaysaa aabaheeda way weydiisanaysaa caawimaad subaxdii xigtay. Haddaba Handee waxaa la isku dayaa in guriga laga saaro iyadoo lagu leeyahay ninkaaga maadaamuu yahay dilaa guriga waa inaad nooga baxdaa. Waxaa loo soo qaadayaa dhammaanba boorsooyinkeedii, ayadana waa mid leh ma baxaaye, laakiin meesha waxaa iman doona aabaheeda asagoo leh haddii uu ninkeeda maqan yahay ma aha in aad bixisin, sidoo kale ma aysan furin. waxaana gurigaana xaq ay ku leedahay gabadheeda maadaama uu ninkeeda ka tirsan yahay reer Sanjaagsaade. Haddaba Fariid ayaa dhahaya Xuseen oo adigana ma waxaa la soo safatay kuwii xumaa ama xumaanta ayaa la soo safatay. Markaas ka bacdi waxa uu Xuseen dhahayaa Fariidow waxaan kuu malayn jiray nin yacni cadaalad yaqaano oo sharaf leh, laakiin waxba kama taqaantid.
gabadhayda maxaa lagu haystaa haddii uu Yamaan dabcan dambiga geystay xaq ayay ku leedahay gurigan. Yamaan inta uu meel ka imanaya wax la xukumayana kama tagi doonto meeshan. Laakiin tan ugu dhibaataysan ayaa waxay tahay ayagoo runtu xaaladdu meel xun marayso, Yamaan ayaa meesha imanaya. Arrinkaasina waxaa ka nixi doona Azadiye intii kale meesha joogtay. Markaas ka bacdi Yamaan marka uu soo gol hadalkiisa koobaad waxa ay tahay ha farxina ugu horreyntii ha farxina xaaskiisa ayuu habsiinayaa. Xasuus hore ayaana la tusayaa qaabkii loo badbaadiyey. Waxaana badbaadiyey ninkii lagu magacaabayay Bakhtiyaar asagoo leh jaakada habeenkaas aniga ayaa meeshaasi geeyey. Sidaasi ayuuna uga soo baxay ninkan lagu magacaabo Yamaan xabsiga. Sidoo kale qofka loo badinayay in uu dilo Cadnaan waa Bakhtiyaar ee saa ula socda. Kaliya qaybaha sifaalada ay ka mid yahay xalqadan kuma jirto, yacni waa faalada iyo dadku waxay sheegayaan iyo sidoo kale saadaalinta oo kaliya waaye in Bakhtiyaar uu dilo Cadnaan. Haddaba Hande waxay dhahaysaa Marwe Azade maxaa kugu dhacay? Ma walwashay, ma naxday, ninkayga waa ka imaaday. Haddaba Yamaan ayaa hadlaya waxa uu dhahayaa sideedaba dadka aanan dembiga lahayn macquul maaha inay xabsiga ku sii waaraan. Haddaba Fariid ayaa isaguna hadlaya waxa uu dhahayaa aniga ma garanayo kolay been aad sheegtay meeshaas uga soo baxday, laakiin waan ogaan doonaa kolay meel aad qaab akaad meesha uga soo baxday. Fariidna waad mid meeshaasi iskaga tagi doona oo xaggaasi ayuu tagi doonaa. Haddaba ninkii Shaahiin ahaa waa mid runtii walwalsan, wuxuuna ka walwalsan yahay gabadhiisa Elif ayuu ka walwalsan yahay. Haddaba tan ugu layaabka badan ayaa waxay tahay qoftii Azade ahayd mobile ayay ku hadlaysaa ayadoo leh Yamaan soo uga soo baxay xabsiga, jaakad been ayaan sameynay, soo uga soo baxay qof ayaana dhageysanayay. Laakiin nasiib darro qofka dhageysanayay waa Caaisha. Waxaana ku ogaanin inay Caaisha tahay. Caaisha ayadoo meesha joogta ayay xasuusan doontaa ereyadii xilligaasi Azade ay ku hadlaysay. Sidaas darteedna waxaan ku xaqiiqsanay qofkii Azade dhageysanayay in uu yahay in ay tahay Caaisha gabadha lagu magacaabo. Oo Caaisha ayaa ahayd qoftii dhageysanaysay xilligaas Azade waxay ku hadlaysay. Haddaba mobile ayaa usoo dhacaya Caaisha. Mobilkaasina waxa uu sheegayaa in Elif meydkeeda laga helay xeebta. Caaisha ayadoo walwalsan ayay guriga ka soo bixi doontaa. Dhanka kale Fariid waxa uu joogaa dhankaas iyo shirkadda ayay joogaan. Haddaba Caaisha markay ka soo baxda guriga waxaa ka bari doona in uu qaado Yamaan asagoo kule waan ku baraya walaashaada kale gaadh yacni soo raac. Ayaduna waa ay diidi doontaa. Laakiin ugu dambeyntii waa mid ogolaan doontaa in ay soo raacdo Yamaan. Yamaan ayaan soo raaci doontaa ugu dambeyntii. Halkaasna waxaa ku arkayay Azade. Haddaba shir ayaa la qabanayaa dhanka shirkadda, laakiin muhiim ma aha ka nimaano shirkaasna waxaa laga waayay Yamaan. Haddaba Yamaan iyo Caaisha gaariga ayay soo wadanayaan. Ha soo wataan ma xumee, yacni dhexda ayay kusii sheekaysanayaan. Markaas ka bacdi waxaana la tusayaa islaantii fiidiyay ahayd oo haddana la soo wacayo. Ha la soo waca ma xume ilaa hadda wax looma sheegin ayada xilligaas. Caaisha iyo Yamaan waxay imanayaan xeebtii. Markay imaadaan ka bacdi Caaisha waxay ku soo ordaysaa meydka Elif, laakiin booliiska uma oggolaanayaan in ayada ay u dhawaato. Caaishana waa mid la qabanayo oo gabadhaasi xilligaas yacni Elif lagu magacaabo way dhimatay. Caaishana halkaasi ayay ku baraaran doontaa. Odaygii Shaahiin ahaa oo iska fadhiya la soo wici doonaa. Halkaasi ayuu asaguna oohin iyo baroor ka bilaabi doonaa. Haddaba qoftii fiidya lagu magacaabayay waxay uga sheekaynaysaa gabadhan Bituul ayay u sheekaynaysaa. Waxay ku dhahaysaa anigoo doorka hor cunug ayaan waayay oo cunugeyga ayaa iga dhintay. Waxa ayna u sheegaysaa in aysan hubin walaasheeda dhimashadeeda. Sidoo kale waxay uga sheekaynaysaa Yamaan qaabkii loo waayay iyo Yamaan Cadnaan qaabku ugu geeyay Saa'is ninka lagu magacaabo. Haddaba yacni Bituul ayaa weydiinaysa su'aal islaanta fiidya waxay ku dhahaysaa Cadnaan Yamaan ma wuxuu ka tegay hooyo la'aan darteed. Markaas ka bacdi waxa uu dhahaysaa islaantan fiidya haa hooyadiisa Faraaya waa ay dhimatay, laakiin ma ah mid aan xaqiiqsanay. Kaliya waxa naloo sheegay in ay dhimatay lana aasay. Haddaba warbixinada u dambeeya ayaa ka mid tahay in islaantaasi ay nooshahay. La soco dabcan muuqaalada xiga naga soo hadlayno faalada ama musalsalka dhaawaca qalbiga akhbaaraadkiisa. Haddaba haddii aan sii wadano faaladeena kadib marka ay labadooda wada sheekaysi badan dhex maraan
odaygii lagu magacaabayo Shaahin waxa uu imanayaa dhankaas iyo gabadha meesha ay ku dhimatay. Laakiin marka uu imaado kabacdi looma ogolaanayo inuu gabadha arko inkastoo hortaalaba, laakiin looma sideenayo inuu taabsado gabadha wejigeedii. iyo Caysha ayaa xilligaasi canaanaysa, waxay dhahaysaa waxaanoo dhan adiga dartaa ayay u dhaceen, gabadhaana adiga dartaada ayay u dhimatay, oo adiga dartaada ayay maanta ilif ku dhimatay. Haddaba waxaana la tusayaa qoftii Caysha ahayd oo welwelsan, waxaa la soo hadlaysaa ama wuxuu la hadlayaa asaga Fariid. Sorry, iga raali noqdo asxaabta, waxoogaa isku dhex daatay. Fariid ayaa waxa uu la hadlayaa Cayshe, hala hadla ma xume. Marka uu la hadla kabacdi waxay u sheegaysaa in ayada habarwadaagteed ama walaasheed ay dhimatay. Markaas kabacdi waxa uu ku dhahayaa Fariid inta aysan u sheegin ka hor, maxaad ka qabanaysaa ninkaas maadaama uu Yaman ay ag joogtay. Waxayna u diraysaa adreeska. Fariidna waa mid isku diyaarin doona in uu meeshaasi imaado, laakiin Cayshe waa mid welwelsan. Haddaba ma xuma taasi, yacni Sinaan ayaa weydiin doonaa Fariid maxaa dhacay. Markaas kabacdi Fariid waxa uu u sheegayaa in Cayshe walaasheeda ay dhimatay ama habarwadaagteeda. Sinaanna waxa uu dhahay Ilaahu naxariisto, sidoo kale Azaadiya waxa dhahaysa Ilaahu naxariisto. Laakiin waxaa dhacda inta uusan bixin ka hor, asagoo uu la joogo hooyadiisa iyo walaalkiisa, in lala soo hadlo booliiska, in la soo hadlaan una sheegaan gaariga Cadnaan in yacni gaari kale xilligaasi yacni oo ku dhuftay uu yahay gaariga dabcan Azaadiya Sanjagsaade, ama gaari la joogay ama gaari is ag socdeen, sidoo kale gaari u fuushanaa yacni sis camera waxyaalaha ay duubtay in gaariga Azaadiya Sanjagsaade ay tahay. Haddii aydaan fahmin waxaan ka wadaa micnaha, marka uu Cadnaan gaarigiisa watay waxaa mar hor istaagay Azaadiye oo dabagal ku haysay. Sidoo kale marka qaar waxa uu watay gaariga Azaadiye ayuu watay. Sidaas daraadeed qofka dilka looga shaksan yahay waa Azaadiye. Hadduu Fariid isagoo yaabsan ayuu hooyadiisa si xun u eegayaa, wax jawaabana ma siinayo. oo Fariid waa mid welwelsan, hooyadiisana la yaaban. Haddaba Fariid waa u soo baxayaa isagoo leh nacalad ha idinku dhacdo, qof aliga qof u jeeda ma jeedo, isagoo leh haddii aad u taqaantid af Soomaali ahaan sit ama waan ka xumahay. Fariid asagoo gaariga wadada socda waxa uu ku dhici doonaa gabadhii cusbay ee taxan lagu soo daray, ama atiriisadii cusbay ee taxan lagu soo daray. Haddaba gabadhaasi ayuu ku dhahayaa yacni marwuu caafimaad qabtaa. Ayaduna waxay dhahaysaa adiga indhool maa tahay yaaqi, maxaad soo ka ilaalin weysay. Kor markay u eegto indhaheeda waxaan ka dareemaynaa in ay ka naxday qofka ay gaariga ku dhuftay, ama ay la yaaban tahay, maadaama uu yahay qofkii ay daawan jirtay mar walba sawiradiisa. Halqaduna halkaas ay ku dhammaanaysaa. Waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka hesheen. Fadlan muuqaalka like noo saara. Waa mahadsantahay kabacdi. Anigoo saaxiibkana Khaalid waxaan idinkaga tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.